هيا كسر دو برنامج كسر دو وحوي وعلى شو عطافلية وحي أركتي هذا حرب أو هاي كديم صح. dadkan horta meesha isku yimid dhammaantood hal markaa iminka wada dhegaystay mid xaqiiqda ka warhaya ma jiro. Aan waxaan ahay صح muwaadin u dhashay ma garanaysaa dhulka Ethiopia midda kale weliba caasimadda Jigjiga. Een, سيفي haa, xaqiiqda haddaan idinka dhaco horta Jigjiga ma aha meel Soomaaliyeed waa dhul Ethiopia ma garat. صح marka hore ciidanka la leeyahay way soo weerareen weligoodba way deganaayeen. anu meel garab cas la dhahay deganaayeen weligoodba way deganaayeen ma fahanti. سيفي عن marka Ethiopia Oromo soo weerartay kana soo Oromo waa 50 milyan weeyaan ma garat. صح marka Oromo dulmi u haystay Soomaali u haystay Cabdiilay 10 sano u haystay wuxuu dil geystay wuxuu wax walba geystay Oromana inta in leeg way haysatay aanu xabsi baa ku soo jiray Addis Ababa ma garat. صح صح marka xabsigaa ku soo jiray wallahi dadka Oromo ugu badnayd oona lif baa ku jirtay wax walba ku jiray Jigjiga iska daajeelogaadeen waxaas oo dhan waxa ka dambeeyay waa Cabdiilay iyo Tigray. hadday صح ummadii israacday oo dulmigii la iska dulqaaday oo xorriyad la helay ma inuu Cabdiilay ma garanaysaa uu ku sii daba dhow Soomaali wax kale u boodbooda miya aru waa ka seexan kari waaya arrinka iminka ma garan. صح marka waxaan dad Soomaaliya kanay waxaan la كامل buubuuninaya ساعة وجهك سيفي عنها وقلع ها أوكي marka waxaa la buubuuminayaa laga baxo ma garatay Soomaaliya. waxaa tiri hadalkaaga waxaa ka mid ahaa Soomaaliya dadka meesha ku nool dad Soomaaliyeed baa maaragtay inay ku nool yihiin bay anaga nala tahay sida xaqiiqda ah jigjiga waxaa tiri dhul Soomaaliyeed maaha dhul Ethiopia weeye marka waa dhul Ethiopia weeyaan waa dhul Ethiopia weeyaan Jigjiga dawlad deegaanka Soomaalida oo dhan waa dhul Ethiopia. si fiican iyagii hadday doonayaan inay xornimo qaataan oo Ethiopia ka go'aan dastuurkay noogu taalaabay leeyihiin waxaan ku iraahdaayay xukunkii lagu heshiiyeyna waxa weeye markii hore tan gumaysi aan ku jirnay haddana xataa kheyraadkaygii baa loo soo dhigto boqolkiiba 5 baa bedrool kale ka siinayaa baa leeyahay taas xataa xaqiiq wax cid ka waraysa ma jirto horta batroolkan la sheegayo anaa daawaday ra'iisul wasaaraha isagoo Mareykanka ka hadlay anaa daawaday oo yiri boqolkiiba 5 baa la siinaya sax boqolkiiba 5 hal la fahmo boqolkiiba 5 waxa weeyaan waa goobta uu ka soo baxay shirkad baa intaas oo dhan maxaan ku raahdaa soo saaraysay prestige bay ku leeyihiin ciidan baa ilaalinaya waa la sifaynayaa maxaan ku imika ka soo qaad Ethiopia light bay soo saaraan maxaan ku raahdaa gobol maxaan ku raahdaa ismaamulahan kamid ah ama Maxaara ama Beeshaangul ama Oromo kuwaas ka soo baxa waana la wada adiga hadda fikrad maxaa aaminsan tahay inay ismaamulku inuu Ethiopia ka sii tirsanaado mise inuu maaragtay gobonimo helo dal madax banaan noqdo taasi horta weligii uu ka tirsanaanaya taasi hadal ba male hadday dadkii doonayaan inay ka go'aan ka waran oo ay leeyihiin waa doon ilaa kitaabku ma qorna ilaahiye maaha inay kamid ahaadaan shalaba Ingiriis baa ku daray may way dadku way rabaan dadku kamid way haanayaan wayna rabaan laakiinse waxaana rabin waxa weeyaan ma garanaysa waa hal qabiil weeyaan oo markii hore banaan taagnaa kaasna isaga garan meeshu tagi Jigjigana dad baale dadkii lahaana way u joogeen qabiilka maxaa la dhahaa qabiilka raba inuu soo ka go'o maxaa ku dhahdaa Ethiopia maxaa la dhahaa qabiilka magacii qabiil waa hal qabiil oo loo dhanay waliba ma garanaysaa waa qabiilka magacii waa de ubbo weeyaan ubbaan anu magaciisa caadiga maxaa loogu yeeraa qabiilka magaciisa caadiga anu ubbaan waqana brother ubbo ogaadeen miya ogaadeen say kula tahay weeyaan ma garat ogaadeen laakiin waxaan xogta ku haynaa meesha ogaadeen inuu u badan yahay xogta ku haynaa uma badno ogaadeen dhulka ay degaan baa badan marka 10 cisho socoto meel banaan ayada habeen la kulmaysaa meel yaro afar maxaa ku raahdaa guri ku yaalan ma garat mid kale Ethiopia dhulka Ethiopia oo loo dhan yahay qabiilka waa la isku gartaa ceeb ma ahay adiga reerkeed tahay adiga qoladeed tahay did waa qamiyaha qabiilka waa la isku gartaa ceeb ma ahay qoladeed tahay anigu anu Soomaali baan ahay Soomaali Ethiopia may qabiil baa magac dhawday waxa tiri waxa weey Soomaali marka tahay kullu Ethiopian ba hadda waxa tiri in Ethiopia ka simid ahaana rabnaa qabiil baa magac dhawday dadkii waa kala saartayo qabiil baa u kala saartay qabiil Ethiopian taageersan kuwa aan taageersanayn marka shida male la taaruf bale aduu reerkeed tahay marka la hajad gaar aan kula hadlayaa
anigu ma jeclina qabiilkayga ma garanaysaa meelaha ka sheego laakiinse maxaa haddaadan jeclayn qabiilkaaga inaad sheegto dadkii qale qabiilkooda maxaa u sheegaysaa oo maaragtay iyaga banaanka keensaday iyagu kuwaas iyaga banaanka keensaday annagu maanan keensan annagu Soomaali galbeed oo isku duwan baan nahay oo dulmi diidaan nahay oo cabdi diidaan nahay oo waxaan nahay onelif diiday oo Ethiopia ma garanaysaa si nabad inaan wada noolaana rabnaa ma garatay okay haddaa cabdi diideen marka ma oroma ka raacaysan oromada iyo cabdi keela qaatay oromada la qaatay oromadu kuwa onelif jeelka ka soo deysay iminka maaha 10 sano saa maxaan ku dhahdaa sawiraantooda meedka la isku sawiray oroma maaha kuwii ka soo saartay xabsiyada kuwan xorriyada dadka inay hadlaan siisay oromo Soomaa okay cabdi eeg cabdi waa nin shakhsi ah qofku waa khaldami karaa hadduu yiri khaladkayga waa ka soo noqday hadda waa Soomaaliya waa idin qabsoomaya waxa weeye xoogga iyo xeeladda waxaan hayaba waa idin garab taaganahay sidii aad dad xor u noqon lahaydeen soo marka maaha in lagu meel gaaro maaha waa sax taas way wanaagsan tahay laakiinse xilli muu keenay waa waqti laga soo horjeestay odayaashii Soomaali galbeed urursadeen shir baa imika dirdhaba ka socda isaga inta kale ciidamada Ethiopia iskama aynan iman waxay ku yimaadeen dalabkii ay shacabku dhiibteen ma garatay shacabkee baa dalbaday shacabku soo kuwii maanta ku kacay oo gubay oo magaalada ka saaray maaha waa kuwaasi waa dagaal iyo booliis iyo saaka aroortii madla warku ku dhawaaqay madaxweynihii baa la maxay sameeyay kuwa sidaa la haayeen waxa ay xulufadii baa meesha qoosman ula socda saxda ay dadka ka cilneen kuwa kale waxa ku laan war dadka masaakiinta jaarso oroma jaarta la dhacay maanta iyo waxa qada meheroodii la jabsaday taasi ma Soomaali ma saas waxaan ku weydiinayaa adiga inta kala qaybsanaanta iska deysaan dadkii meesha Ilaahay ku abuuro Soomaaliyeed haddaad tihiin inaad magac Soomaaliyeed wax ku doontaan oo dalkaasi dal Soomaaliyeed weeye meesha Ingiriis bayna ku daray idinkoo Soomaali ah oo gacmo is haysta xornimadiinii aad doonataan oo maxaan ku raadayay dalkiina xoreysataan maxaa ku diidantiin maxaa sitaa ku jaban wax lagu diidaya taas ma jirto laakiin wada sax ayna loo maray weeyaan ma garanaysaa marka hore Cabdi Ilay dad baa horta waa waxaan ciidan Cabdi Ilay ma eeg Cabdi Ilay maanta ciidan buu haystaa tabar buu haystaa nimana kan dirdhaba ku shiray waa sacboole waxa ma haystaan laba askari ma haystaan Cabdi Ilay hadduu ciidanka haysto maxaa madaxtooyada looga qabsaday ciidanku haystaa way liu bolis buu haystaa soddon ku weeyaa la leeyahay liu bolis hadduu haysto may wakaas ha soo saaran isaga Cabdi Ilay hadda weli lama xirin Cabdi Ilay wuu dagaalamayaa maxaa ku raadayay waa ninka banaanka jooga way miyuu xiran yahay wuu xiran yahay waa la hayaa weliba maxkamadda la soo istaajinaya indhaha gooshana waad arki doontaa waxaad arki doontaa meeshaasoo berri ciidan Ethiopian intay la wareegeen ma garanaysaa dadka shirka dulmidida ay dirdhaban intii isku yimaadeen si ma garanaysaa Soomaali loo wada dhan yahay inta la wada doorto wixii dana la wada qabsan doono oo inaan meesha ka bixi doonto Itaaniya balaayo meel laga tagay meesha Ethiopia Khalid waxa lagu yaqaanaa gumaysiga waxa lagu yaqaanaa inuu dadka wada dhashay ee meesha degan uu iyaga maxaan ku raadayay hubka isugu dhiibo inuu iyaga kala dilo inuu iyaga kala geeyo si maxaan ku raadayay fikradda qayb oo xukun ay ugu hirgasho marka waxa ii muuqata hadda idinka adiga inaad dadka qaarkii maaragtay dadkii meesha kula deganaa Soomaalida ahaa walaalaha ahaa qaarkood maxaan ku raadayay qabiil ahaan maaragtay u fogeynaysid iyaga laftigooda waxa laga yaabaa sidaas lamid inuu ku fogeeyaan ma isaas ma jirto imika ani Khalidka ahaan dulmidiidka ahaan waxa jira Soomaaliyo dhan baa diktoorta Soomaali galbeed waa qabiil oo isku wada jira geeri hawiye nooc walba waa isku wada jira ma garanaysaa dadkaasi waa isku wada jira dulmidiid baa la wada dhaa ma garanaysaa dadkaas ayaa dalbaday kuwaas xataa dil baa loogu hanjabay rag uu diray baa laga qabtay dawladda federaalka way gaadhay Mareykanka waa la shiray su'aalo la weydiiyay maxaa dadka codsigooda u qaban lahayd baa la yiri Khadar baa weydiiyay marka codsigooda baa la aqbalay xataa marka codsigooda la aqbalay ayaa ciidanka loo soo diray si ay ammaanka dadkan u sugaan xataa xabsiyada dadka siidaanta lagu dhow ka siideyn waayay ayaa qasab loogu soo diray ciidan oo ciidan ay ka soo daayeen Ethiopian jigjiga walaalkay baa kamid ah dadkii ciidanku qasabka kaga soo daayay habar wadaagay baa kamid ah oo 8 sano isagoo beer qodanaya lagu soo xiray on alif baxay siisay oo ciidanku ka soo daayay ma Cabdi baa soo daayay hadduu Soomaali rabo kuwa siida lagu leeyahay musiidaya marka magaciisa shalay maalinku xabsiga ka soo baxay
toddobaad kan waxa maalin dhowt waxa dhacday ra'iisul wasaarihii horeeta Ethiopia Haile Mariam Desalegn wuxuu tagay meesha la yiraahdo wadanka la yiraahdo Zimbabwe doorasho halka ka socday buu kormeer ka ahaa wuxuu halka kula kulmay madaxweynihii horeeta ninkii la oran jiray Mengistu Haile Mariam buu kula kulmay oo sawir la soo galay oo wuxuu yiri waxa weeye waa inuu dalka ku soo noqdo amaanay waliba marka adigu hadaa ninkaagii xumaa ka cararto oo maxaan ku raahdaa fariidkaaga ka carartid soo nin maxaan ku raahdaa cadow oo doqontiisa wata ku jeerimayo iyagu sida miya isu kala qaybiyaan sida adu hadda Soomaali u kala gurayso Oromo ma isu kala gurtaa Oromo way midaysan tahay waayo Oromo kuma jirada mid ma garanaysa shacabkiisa xumaan la raba adu cabdi imika adu waxa ku arkaa inaad cabdi u aragtay haliye maanta mid kale waxa ka xanaaqay Erdogan kaas aad ceebaysay magaciisa ku soo qortay wallahi wabillahi wa tallahi ninka meel ba kaga dhacniyoon ani cabdi waxaan u arkaa ani cabdi xukunkiisa ma jecli shakhsiyan ma jecli laakiin waxaan leeyahay war halaga faa'iideysto oo cabdi haduu ahaa maaragtay abeeso inaga tigray in ku qaraacay maanta iyaga ay ku garaacan wuu hubeysan yahay halaga faa'iideysto sababta maxaa keenay adu fahan sababta uu cabdi iilay la leeyahay waan go'aynaa maxay rashbad sameeyo kutibana soo weertay sababta muxuu ku keenay sababta wuxuu ku keenay qayla gardhaweysi qofku waxa weey nin daal qaaday xunba cuskay hadii Oromo ku soo jabtay yaa Soomaaliya inuu dhaho xaq buu leeyahay may waxa uu ma garanaysaa arrinka uu sameeyay waxa weeyaan xil ku dheg iyo qabyaaladnimo iyo ma garanaysaa guumeysi uu isagu guumeysiga Itoobiya ka jiray aan ku faasiyo guumeysiga Itoobiya ka jiray wallahi wabillahi wa tallahi dawlad deegaanka kama jirin qabyaalad maxay isaga la kama maqal yaa ogaadeen kama maqal yaa Soomaaliya horay buu waxaan imika un bay dadku arkeen bishii u dambeysay oo dhan ayaabuu ma garanaysaa dad buu soo dirsanaya oo intuu qol ku soo xidho mid suldaanka ummadda la dhahay intuu qol ku soo xidho ayuu isagoo live ku jira kaale inta lagu yiraahdo loo yeedho dadka wada daawanaya sidaa dhada lagu ay ma garanaysaa abaabul baa la waday Oromo waxa la Oromo ay soo weeraraysa waan على أنا لف بتجي له وريان وكشلي على أنا لف إنجك جي له جتها دقول ويه سو لما كي أنت حرمة أسو هالجمع يماه إثيوبيا كلا دريري لا ما درير إثيوبيا كوكو فصحي ما كون يرحم على أونلف محا كديريسا على أونلف سوماها كي لا دريري كي إثيوبيا كلا دريري سوماها سو على سو كي ماركتي أنت أديك كود دجالمي معها محا كديريسا كي إثيوبيا هدي على أونلف ما ديريو لكن سو حن ديريا ninkii shalay toole ma garanaysaa dilayay ee laga furfuray inuu maanta ii qaataan diidaya hadda eeg Oromada hadda waxa tir waa midaysan tahay Oromada midowday waa eeg waa kii dawladda mucaaradka ku ahaa oo maxaa ku dhahdaa booska Onolf ee joogay kii booska Cabdi ila joogay kii joogay weeye oo madaxweyne kiilalka waa koodii dibadda joogay iyagii oo dhan oo hore u kala duwanaa mabda ahaan baa maanta midoobay waxa ku midoobeen waa sidee maxaa ku dhahdaayay danteena u ilaashanaa adiga iyo Cabdi Maxamed Cumar maxaa idin diiday inaad dantiina ku midowdaan oo Oromo iyo dadka idinku soo diraa iska dhicisaan oo dalkiina madax banaaniisa aad doontaan maxay idin diidayeen inay kala qaybiyeen annaga waxa loo diidayaa dadkii horta isku mabda maaha mid kale dadku horta ma wada rabaan inay ka go'aan annaga dan nooguma jirto inaan ka goono dawladda Itoobiya ha dan kuma jirto Soomaali galbeed sabab la'aan wata maanta Soomaaliland baa ugu dhawo حد بحدة بالله أنا لقوس وقال المسبح. سومالي لان إسكدا سومالي كلا إسكدا جبوتي أو حافظة أو محاكل هذا هل مجال أو معناه بالدولة نقطة هذه دوري 8 مليون بعتها شلال بالله هاي ضل سومالي لأك بالله هاي هذا ما الدولة نقطة سومالي كلا أنت إسكدا عفوا هذه. ما هي دولة ما نقولش فإذا ضد سومالي جود واحد كتير وحويان وإثيوبيا waan garanayaa Soomaaliya oo dhan anu waxa garanayaa disababa dadkan Soomaalida nimka halka buubuuminaya markii baasaboor ka qaataan ee disababa isku sawiraya wallahi baasaboor Ethiopian hada oo laba cishaan ku qaatay intay imsa bilowdu sigaan bi isku sawir horta Ethiopia annagu Ethiopian baan nahay cid kastaana ma garanaysaa Ethiopiana
oo Soomaali galbeed qabiilkii doonaya aadaan Ethiopia meel kala tagay ma jirto haddii Ethiopia la kala tagayna si wanaagsan baa loo kala tagay laakiin sidan iminka ma hadde ma garanaysaa qotibana soo weerartay kanana soo weeraray oroma midda kale waa muslim waa islaam waa dadka Soomaaliyeed baa isku naay oromada kushitig baa isku Khalid dadka Khalid dadka anoo fikradaada ixtiraamaya waxa weeye dadka Soomaaliyeed ee adigu ka mid tahay ee dhulka ku nool Ethiopia marna xornimadooda kulama joogin xornimo kuma raacin gumaysi baa ku daray Ethiopia gumaysi baa ku daray iyaduna waa gumaysanaysi marka soo xaq uma leh dadka in fursad loo siiyo inay aayahooda ka tashadaan marka ay codeeyaan haddii ay u bataan inay go'aana maxaa ku lahaa xornimadooda la siiyo haddii fikradda ay qabto ay u bataana marka ay la sii joogaan soo xaq uma leh taa de taas cid diidan ma jirto waayo iminka waa kan shirka Dirdhaba ka socda wuxuu u socdaba waa intaas wax kala ma ahaba de shirka Dirdhaba waxa la leeyahay shirka Dirdhaba aniga waxaan maqlay waa arkay nimanka Dirdhaba ku shirsan waxa la yiri waa niman dawladda dhexe ee Ethiopia ay soo abaabushay iyadoo ay maalgelinayso ay rabto inay maaragtay cabdi adiga hadda waxa ku eedeynaysa inay Tigray ku shaqaysanayeen meesha kaysadeen Soomaa xaqiiq cid walba taag hadda waxa la yiri hadda Oromo waxa rabtaa mid cabdi la mid cabdi Oromo inay kaysadaan oo ay ku shaqaystaan may adigu shalay xabashi baa ku garaacayay oo ku gumaysanayo migistu ahaa Tigray baa kugu xigay maanta Oromo ay taagan tahay adigu miyaadan qof Soomaaliya oo waxa tahay qof Soomaaliya oo Ilaahay sharaf siiyo oo Ilaahay dal siiyo oo Ilaahay cis siiyo adigu maxaa ku diiday inaa inta xor noqoto inaa adu xukunka qabsato adu ismaamusho adu isu dawladayso maxaa ku diiday maxaa ku khasbay waxa loo diiday xaaladda hadda lagu sugan yahay xaalad kali la istaagi maaha ma ogtahay xaalad imika kali la istaagi maaha midda kale annagu ma rabnaba inaan kali istaagno annaka ka Ethiopian ka Soomaali galbeed ahaan laakiin haday doorasho dhacdo ma garanaysaa oo la yiraahdo la isku codeeyo taas waa loo geliyaa horta adiga fikirkaaga waa shakhsi baa tahay halakan dad badan ka hadlay oo Soomaali galbeed kuwa badan maartay aan la xiriiray dadka majority waxa ii baxday inay rabaan inay go'aan waxa arkaysay shalay waxaan wadaa shalay sidii magaalada uga mudaharaadeen arkaysay marka adiga shakhsiyadaada waxa weeye waa u hadli kartaa laakiin dadka kale soo khalad ma hayna dadka kale toodhan afkooda ku hadasho صح laakiinse anigu fikirkayga aan ku hadlaya xataa de magaranaysa Ethiopia adu imika anu waxaan boqol hubaa inaad sumili ka warhaynin xaaladeeda systemkeeda wax walba ma ogtahay waxa hubaa inay may waa sax waa iga xogaarsataa waa ku qirsanahay laakiin wariguma seegana صح waxaan anu ku sheegaya rabaa inaan ku fahansiyo ma garanaysaa Soomaali ka go'itaankan iyo waxan oo dhan inaynan ka ahayn Soomaali go'itaan waqti weeysan inay ka go'aan intaasu jaanisay intaasu firqleynay bari hore ayuu ka go'ilaa ma garanaysaa ee hadda Cabdi Ile waxaan u wada waxa weeyaan isku dhac Soomaali Oromo isku dhac si ma garanaysaa isagu ugu badbaada meesha midda kale dad ba ummadda ku soo socota dhul kale midda kale jigjiga aabiyo hooyadii toona male meelaha laayeen harishbaan moogtahay yaale magaalo Soomaaliyeed baan aragnaa cabdina nin Soomaaliyeed baan aragnaa jigjiga jidwaaq baale jidwaaq soonimo Soomaaliyeed maaha jidwaaq iyo Cabdi Ile ogaadeen maxaa ugu kala wataa soo dad Soomaaliyeed ma ummad Soomaaliyeed weeyeen laakiinse waxa la isku hayaa qadiyad iyo mowqif iyo mabda baa la isku hayaa onalif jidwaaq kuma jiraan mana taageersano ma ogtahay ma la socotaa taa annaga dhulkayga xataa maapka kuma qorno ogaadeenaya hawd ee reserve area noogu qoran ma la socotaa حتى ميت كلام مجعان وقاعدين يلا وريجيان حتى كوميل جارهان ويكيبيديا مالك استطاع خريضه كوميستين كريس كوحن وبحيو كوميل جارهان وباهت ما لا سعتها أنا كنا ما مثلاً ومدرس أنا اللي نما متش نما مثلي دوني ما يصح يكون أنا وقاعدين أنا رفضوا بهالبح هدير تيجي مثلي أدق وحرفت لبح قفك كلو حرب هالبحه لكن واحد جرا مجعين كوض الحية أو إذا مدرن إذا تقاموا aniga aan idin kula jiro magacaas oo magaca Soomaaliyeed marka qofku gurigiisa markuu joogo waxa weeye magacii doon ha loogu yeero wuxuu doon ha la baxo laakiin markii meeshii danta guud la isugu yimaado dadkii waa Soomaali weeye marka ka inaad qaadataan oo waxyaabaha kale oo magacyada kale dadku la kala baxay halka iska dhigtaan maxaa idin diiday maxaa ku diidaysaa taa waxa ku diidaynaa waxan horta qalalaasa socda imika ona lif shir bay wadaan asmara oo Ethiopia la wada hadlayaan ma ogtahay
halkan kale maxaan ku rahdaa kuwan kale dulmidiid movement iyaga laftarkooda shir bay wadaan shirka ay wadaan waa danta soomaali guud oo dhan ma ogtahay dulmadiid waa iyo dulmadiid ma jid waaqba mise waa Soomaali galbeed oo dhan waa jidwaq waa gebi soomaali galbeed oo loo wada dhan yahay oo ugaaska ciise gebi ku wada jiraan hataa hawiyan hadda adiga adiga markaa tiraahdo onolef waa ogaadeen iyagana ay ku dhahaan dulmadiid waa jid waaq sidee wax ku hagaagayaan siday wax ku hagaagayaan waxay banaanka horta taala nin walbana wuu arkaya adigaaga laftarkaagan waad garanaysaa maanta kamaalin jidwaq waan kuu dulmidiid waan kuu tirinaya haddaad rabto onalifna haddaad rabto waan kuu tirinaya ma garanaysaa midda kale onalif iyagaaba diidanba maanta kamaalin waxaan maqlay jigjiga wiil jidwaaqi inuu calan qaato onalif oo laga dhigo lagu yidhi war dhig jidwaaq baa tae aad uma liide calanku waa calankii ogaadeen عادي normal buu soo gaadhay xataa haddaad rabto caddaynta waan ku haya ma garat marka dadkan kuwan iminka dulmidiid dantay wadaan waa danta soomaali guud oo dhan xataa waxay rabaan si sharciyeysan inay xaqooga Itoobiya uga dhacsadaan waxay xaq u leeyihiin haddii fahmi waayaan iyagaa diyaara inay ka go'aan inay xataa onolif wada hadal la sameeyaan diyaar ba u yihiin laakiinse waxaa rashbada wada waa cabdi iile iyo intan meesha uu kaga tegay weeyaan iyo waxaan uu samaystay aniga nin Soomaaliyeed baan ahay Soomaalidu waxay lahaan jirtay dawlad weyn bay lahaan jirtay waa ka warhaysaa dawladoodii waxa baabi'iyay markay iskala qaybiyeen hawiye daarood dinta raxan weyn iyagii ay hub isu qaateen iyagii midba midka kale uu cadow u noqday markaasay jabeen dawladnimadoodii burburtay ciski iyo sharaftii adduunyada ku lahaayeen ay lumiyeen marka ma tusaale taa ka qaadataan oo midowdaan oo wixii walaalkiin maxaan ku rahdaa godkii walaalkiin ku jabay ay idinka ka dheeraataan ilaa maanta waa ku socotaan markaas godkaas ku socotaan dariiqii Soomaali ku jirtaa maanta haysaa wallahi billahi midayn waa la rabaa dadkan iminka jidwaaqa jigjiga dadkan nabad jecel ma jiro waa dad nabad si nabadaysan way iska nabadaysan ilaahay baa iska nabadeeyay ma garanaysaa mida kale dadka dulmidiid movement waa loo dhan yahay qabiiladoo dhan baa u dhan iyagaaba cad kuu caddaynaya kuu sheegaya oo kule war xaqayaga Itoobiya si ma garanaysaa sharciyeysan aan uga dhacsanno haddaan uga dhacsan weyno diyaar baan nahay inaan banaanka la nimaadno waxay iyagaaba kuu sheegayaba ma garanaysaa onolifna sidoo kale iyaguna mowqif bay ku taagan yihiin oo iyaguna si sharciyeysan bay shir u wadaan laakiinse inuu cabdiile maanta yidhaahdo qotibaan na soo weerarta ciidanku awal horeba way joogeen jigjiga garab casay degana meel garab cas la dhaabay xerooyinkan bay xalay ka soo baxeen meel kale kamiina soo bixin cidna miina soo weerarin dhagax buur meel aynan ciidanka Itoobiya joogin ma jiraan waa qotibay ku leen qotib ma waa loo wada dhan yahay militariga Soomaali baa ku jirta Tigray baa ku jira Amxaara ku jirta Oromo beesha nooc walba ku jira intay ooyaan aroortii ay kuwan gudiga filinta la yiraahdo intay qol isku soo xidheen ay dhaan ummaday kaca qotibana soo weerartay madaxweynihii baa la afduubay waxaas waa ummad iska hor keenitaan dadkii maanta la dilay wixii maanta la dhacay iyaga ka dambeeya cadaaladana waa la hor keeni doonaa qof baa loo hor keenaya cadaaladda maamulka kiilka shanaad dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya federal bay ku heshiisay waa maamul federaal waa kiilal Soomaali baa leh adiga kamida cabdi ba hadda madaxweyne ku ah idil adaa laga yaabaa inaad madaxweyne noqoto madax cabdiimika ex weeyaan ex president weeyaan okay waxa rabtid anaga waxaan ognahay wali inuu xukunka hayo marka waxaan kuu sheegayaa waxay tahay dastuur ba Itoobiya dhigatay dastuurka in la ixtiraamo weeye dastuurkaas wuxuu dhigayaa in maamul kasta maxaan ku rahdaa dastuurkiisa iyo danihiisa gaarka ah loo madax baneeyo oo dawladda dhexe aysan faragelin marka haddii dawladda dhexe ay maamulka soo faragelisay maxaa ku diidaya inaad difaacid oo idinku adiga cabdi waxa isku haysaan si hoose u dhamaystaan inkoo maxaan ku rahdaa dawlad deegaana inkoo dad Soomaaliyeed gacmo geljir hoos baa loo dhaqaa in arrimihiina si hoose u dhamaystaan laakiin markii Oromo ay timaado meeshii dawladda dhexe ay timaado xabash ay timaado aamidoodaan oo gacanta isqabstaan oo iska caabisaan iyaga maxaa ku diiday ma cid baa diiday waa la isla waayay walaalo waxaan imisa la soo waday imisa la isbariyay cabdi si kasta waa la yidhi waa la kari waayay iminka markii guriga loogu yimid ayuu yidhi Soomaaliya ay kacay taas ma shaqeyn fircoonba markii badda uu ku dhacay oo kiidhi ilaahay waan toobad keenay ilaahay mu ka aqbalay dala waxaan ma soconayso walaalo wax aqli galan ma cabdi hadda maanta wasiiradiisa aan dhageysanayay fikradahu aaminsan yahay waayada tan oo dhan waan soo socotay oromada tan aan sheegayso midaysan iyaguba weligood ma midaysnayn shalay bay midoobeen marka adigu
maanta inaa midoodo soo maaha soo inaa cabdi maxamed cumar waxaa doonaysay soo maaha inuu soomaalinimo aamino hadduu maanta ilaahay kuusoo hadayo kuusoo noqday maqbuula inaad tiraahdo maxaa soo maaha مقبول هان إرادة عبد إله لكن سحكم كيسن ما قرناش عبد إله أيان حكم لو قنعان هين أنا اللي في مرة بطو أنكم مرة جل عبد محمد عمر عبد محمد عمر ساعدها حدود دون حكمك هكذا شدة ملا يسوى شخصي ماشي waxa laga hadlaya waa nidaam baa laga hadlaya waxa laga hadlaya waa dastuur baa laga hadlaya waxa laga hadlaya waa Soomaalinimo laga hadlaya waxa laga hadlaya waa dalka adiga lahayd weeye عبد محمد عمر waa shakhsi shalay buu yimi caaw tagaya hadaan tagina bari buu tagaya isagu waxa weeye waa shakhsi Soomaalidu waagi intaysan burburka gelin siyaad barre la diriirsay markii ay siyaad barre riday hadday nidaamkooda deesan lahaayeen waxba kama xumaadeen laakiin nidaamkii way dumiyeen marka adiga waxaan ka rabaa waxay tahay oo dadku ay wada doonayaan inaad nidaamkaaga ilaashto inaadan u ogolaan Oromo iyo Tigray iyo Amxaar iyo Ethiopian kale taba inay nidaamkaaga aysan ka burburin nidaamkaaga ilaashto maxaan ku rahdaa dariiq u marto maxaan ku rahdaa silmi ah Soomaalinimo ah sidii aan markaa adiga hoggaanka u bedeli lahayd hadaa rabto adiga noqon صح تاس عديدا ولا له ما جرت والله ددك waayahay khadar aadan kaaga mahadcelinayaa inaan barnaamijka maartay dhowr jeer commentigaagaan akhriyay maxaan ku rahdaayay markii hore waa ii suurtagal weeday waa xagee ku nooshahay Stockholm haye khadar Khalid aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa fikirkaaga xor baa u tahay qofka bini aadanka hadaanu markaa qof dal dagaalamaya ahayn sababa inaan adiimka sida kula hadlo taana marka aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa okay